hay-adda shaqaalaha dowladda Somaliland iyo waxay maanta imtixaan ka qaaday 1200 oo tartame oo u tartamaya 30 shaqo oo ka bannaan hay-adaha iyo wasaaradaha dalka Somaliland. Tartamayaashan ayaa iyagu ka soo dhex baxay 2400 oo tartame, iyadoo isla maantana xarunta hay-adda shaqaalaha dowladda Somaliland ugu fadhiistay imtixaankani. Imtixaanka qaadistan ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Somaliland Mudane Farxaan Aadan Haybe, agaasimaha hay-addaasi shaqaalaha iyo mas'uuliyiin ka socotay Banka Adduunka. waxaa la hadlay tartamayaasha gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Somaliland Farxaan Aadan Haybe isagoona u rajeeyay guul. Gudoomiyaha oo la hadlaya tartamayaasha ayaa waxa uu yidhi tirada kaalmaha shaqo ee loo tartamayay 30 kaalmood bay ahaayeen, loo qaaday wasaarado kala duwan. marka short list-kana 120 baa ku soo baxay. kaalin shaqo kasta 4 qof baa ku tartamaya. marka biidillah afarta cidii nasiibku siiso aqoontu siiso ayuun baynu biidillah taala noqonaysaa cidii soo baxda. dadaal badan baa la sameeyay 2400 iyo dheeraad ayaa 120 kiina maanta imtixaanka laga qaadaya u soo baxdeen short list-ka. taa hambaliyaan marka hore idin leeyahay. mar labaadkana maanta imtixaankii baa idin bilaabmaya. dhammaan xubnaha halkan jooga sida ka daawateen TV-yada waa la dhaariyay. waxaa loo dhaariyay in si cadaalad ah oo alla ka cabsi leh oo hufnaana oo bannaan yaala imtixaanka loo qaado. guul baan idin rajaynaynaa. qofka soo baxa aqoontiisa iyo qadarka Ilaahay weeye. taquulahay horumarka iyo cadaaladda aynu ku helayna waa taas. imtixaankana imanka aynu qaybinayno waa wareegii saddexaad ee shaqaalaha TMB-yada ee wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda lagu xoojinayo kaasi oo uu kaabayo Banka Adduunku. Cabdirasaaq Cabdisalaam, Telefishinka Gobonimo, Hargeysa.